halkaad warkaasina kala socotaan daawadayaal waa istuudiyaha Somali Cable uu ku leeyahay magaalada London. markana waxaynu soo gaarnay qaybta ugu dambaysa ee warka alaaba waxaynu idinkugu soo gudbinaa waxyaabaha la yaab kale ee warbaahintu hadal hayeen saacadii ugu dambeeyay. tan iyo markii lagu soo rogay in aan dawaaf lagu sameyn karin masjidka barakaysan ee xaramka oo dadkii cimrada ahaa ee tagi jiray la mamnuucay iyadoo laga baqayo khatarta cudurka coronavirus ayaa waxaa muddadii ugu dambeysay aada loo hadal hayay in laga dareemay xaramka arintaasi. hase ahaatee video ay baahiyeen qaar ka mid ah dhalinyaro iyagu markaa kasoo jeeda magaalada Maka oo booqday xilli galab ah masaajidka ayay ku arkeen arin la yaab leh taasoo ay baraha bulshada ku faafiyeen warbaahinta qaarna ay isticmaaleen. haddaba videogaas ayaa waxa uu muujinayaa in shimbiro xayn u socda la arkayay iyaga oo markaasi sidii dad dawaafaya oo kale ugu wareegaya Kacbada dusheeda. arintani ayay ku tilmaameen markii dadkii dawaafayay Kacbada la joojiyay oo ay yaraadeen in Ilaahay uu u soo diray Kacbada inay dawaafaan shimbiro iyadoo shimbirahaasi la sheegay inay dhowr jeer ku noqonayeen inay dul maraan Kacbada waxaana la sheegay in arintani ay noqotay mid mucjiso ku ah dadkii halkaa joogay ayaa si weyn arintan ula yaabay. warkii oo aad kala socoteen istuudiyaha Somali Cable uu ku leeyahay magaalada London waa naga inta anigoo nadaara ayaa idin la socodsiinayay. inta aan mar kale kulmayno meel kasto aad joogtaan sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. makaadahay ama kugu adkaatay in aad uur yeelato si aad caruur u dhasho ma dareemaysaa xusuus iyo xiftiyari ma haysataa caruur leh xaaladda autismka ma dareemaysaa caafimaad xumi guud ma ka cabanaysaa kor xanuun iyo lafa xanuun ma u baahan tahay toobin ragga iyo dumarka. haddii jawaabtaadu tahay haa la soo xiriir taleefanadan shaashada kaaga muuqda si aad u heshid faahfaahin ku saabsan daawooyinka dabiiciga ah ee xaaladaada ku habboon. kala soo xiriir My Natural Healing.